Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. Waxaynu ku soo qaadan doonaa personality test ama tijaabada nooca shakhsiyadda qofka qaybtiisa labaad. balse intaynaan bilaabin barnaamijka, daawada haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, siina sheer garee barnaamijka si uu gaadho saaxiibo kale oo danaynaya inay ogaadaan warbixinaha noocana. Mahadsanid. aynu ku socono barnaamijka ee daawade inta aanan sheegin nooca shakhsiyadeed ee aan tijaabin doonno waxaan kuu soo bandhigi doonaa jumlado dhowr ah si fiican iila soco oo tiri inta weedhood ee aad igu raacday iyo inta aragtiyood ee aad igaga duwan tahay. aan bilowno. Number 1. aaminidda in aad dadka kale ka wanaagsan tahay waa wax khaldan. Number 2. in dadka oo dhan loola dhaqmo si siman waa mid aan fiicnayn. Number 3. in dadka la aflagaadeeyo ama la caayo waa wax khaldan. Number 4. in loo dabacsanaado dareemada dadka kale waa wax aan fiicnayn. Number 5. ixtiraamka dadka kale ma aha shay wanaagsan. Number 6. in aragtiyaha dadka kale laga hor yimaado waa wax khaldan. Number 7. si fudud ayaa la ii qancin karaa waa aragti qaldan. Number 8. in qof walba hadal wanaagsan lagu yidhaahdo ma aha mid wanaagsan. Number 9. in aad cid walba hadalka kaga hormartid ma aha mid wanaagsan. Number 10. qof walba inaad ku aqbashid sida uu yahay waa aragti qaldan. Number 11. inaad rumaysatid waxa dadku ku hadlayaan ma aha mid wanaagsan. haddaba daawade waan filayaa inaad hoosta ka calaamadsaday weedhaha aad igu raacday iyo kuwaad igaga duwan tahay. nooca shakhsiyadeed ama sifada shakhsiyadeed ee aan maanta tijaabinaynay waa midda loo yaqaano agreeableness oo ah inta ama heerka ay taagan tahay qofku inta uu qof kale ku tixgelin karo ama uu ku raaci karo aragtiyihiisa. haddii inta badan ama dhammaan aragtiyahan aad igu raacday waxaad tahay shakhsiyad leh sifada loo yaqaano agreeableness. sifadani waxay ka turjumaysaa kala duwanaanshaha shakhsi ahaaneed ee la noolaanshaha bulshada. shakhsiyaadka sifada noocan lihi waxay qiimeeyaan la dhaqanka dadka kale, sidaa daraaddeed waa kuwa tixgelin leh, saaxiibtinimo leh, deeqsi ah, waxtar leh oo doonaya inay danahooda ka hormariyaan ta dadka kale. dadka sifadan lihi waxay sidoo kale leeyihiin aragti rajo leh oo xagga dabeecadaha aadanaha ah. waxay aaminsan yihiin in dadku asal ahaan daacad yihiin oo hufan yihiin oo la aamini karo. balse daawade haddii aad weedhahan badankooda aad igu khilaaftay waxaad tahay shakhsiyad midka hore ka soo horjeeda oo ku cagsi ah. waxaa lagu tilmaamaa shakhsiyaadka aan sifadan agreeableness lahayn inay yihiin dad isku arka inay ka sarreeyaan la dhaqanka dadka kale. guud ahaan ma daneeyaan wanaagga dadka kale, sidaas daraaddeed uma badna inay naftooda u huraan dadka kale. mararka qaarkood shakiga ay ka qabaan dadka kale waxay ku keentaa saaxiibtinimo la'aan iyo iskaashi la'aan. inaad yeelato sifadan agreeableness ayaa u wanaagsan dadka raba inay caan noqdaan, waayo dadka oo dhan way la heshiin karaan waana la jecel yahay. dhinaca negatifka ee shakhsiyadan ayaa ah inay yihiin dad inta badan ka tanaasula qadiyadahooga iyo mabaadi'dooda. sidoo kale waa dad ay ku adag tahay go'aan qaadashadu marka ay arrintu culus tahay. daawada comment-kan igula wadaag haddii aad sifadan agreeableness leedahay ama haddii aanad lahayn, una sheer garee asxaabtaada si aan iyagana u ogaano. mahadsanid.